مدارات كانوا همد لك قصور شذا لعقت شلين كصومالي وقار كم إذا صرف لياش مقالة اللاس عنود ديدين بقول الشعب هيا سوق صوب حي ودين كواوين مقالة اللاس عنود يظن الباب الله لا بعد ما جناح سجي وحان الرصاص وجن لقى مغلي حافظة كل الدون مقالة اللاس عنود ولا وايسن عليه وحكون غن رصاص تاسي شعب كمقالة اللاس عنود الله الله تلفزيون كساب تي في يا شيء جايين أيسن مرنا بقى يلدونين إلا تشوشي لعقت شلين كصومالي الرحمن الرحيم صاحب وحلقة مطهرات العقد الصومالي ولا تشوشي وحنو لنا العقد الصومالي ولا تشوشين منه دوننا منه وحنو دوننا العقد الصومالي إنه لو ده أنا كلنا دوني منه العقية عنكو قرأتنا أنا دوننا وسيدا عن ذي شغني مرقا هدله هو قولك حسلات دي سوى حنو دوننا إن العقد اللي دايو إلى أي عمر ضمبنا أساسي وصعرسا وحنكم لنا صوماليا وحنكم لنا إنما دوننا نو إنما نو انت ما دوننا كل منا مرهمنا كل ميغا حنا تاي وحده من ولا والله لعقت يدان والله على عدان والله لعقت الصومالي هنولاتو موكل لعقت الصومالي موكل مرمنا لا سوريا halkan waxa weeye lacagtii la diiday hadda la fasaxay aan Soomaaliya horta hanoolaato farmaajo hanoolaado Soomaaliya ha dhaco waxaan doonaynaa lacagta Soomaaliya lacagta Soomaaliya doonana lacagta Soomaaliya ma doonana Soomaaliya doonayna Soomaaliya ku qashan marna lacagta saaka waxaan isugu soo baxnay inaanu ka hadalno lacagta shilin Soomaaliga oo la diiday ee farmaajo waxaan doonaynaa lacagtaas shilin Soomaaliga ay shaqaynaysa inaanu qaadano wixii lacagta laantaana ma doonayno mana rabno mana raacsanin ganacsatada waxaan u sheegaynaa haddaysan dayn bakhaar dambe inuu soo badbaaday aanu la dhigayno taliyaha qaybta booliska gobolka Soolgaashaan la Khaliif Cali Afgaab oo la hadlayay dadkii mudaharaadayay ayaa sheegay in cidii diiday lacagta shilinka Soomaaliga la marin doono xukun sharci ah waxaan halkan ugu baaqaynaa ganacsatada reer Sool bakhaarleyda waxa weeye kuwa wadaxda fadhiya ganacsatada yaryar ee ganacsatada waaweynba inay lacagta shilin Soomaaliga oo hore halkan uga socon jirtay oo ay dadka ka joojiyeen oo ay cunaqabateyn saareen inay lacagtaas sii daayaan cid allaaliye cidii diidana talaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadanaa Cabdirashiid Xasan Cadde wararka telefishinka caalamiga ee SAB TV magaalada Laascaanood